السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحادثنتها كراشية تي في شبلة وسلام يا دمان شقالها إذاعة يا تي في جبا waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iideysto isiisan inaan ka faa'iideysto waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha amniga oo waxay ga weydiisay arrimaha amniga ee xaafadan Mayve sabankii dambaba aad ay u liidatay haddana ayadoo aad u xumayd haddana waxaa lagu sii daray culayskii hore Soomaalida haystay xaafadan culays kale lagu daray sababo aanan fahmin marka waxa jira oo hadda xaafadeena ka taagan waxay tahay tuugadii oo soo badatay niman dhalinyaro oo kulay siday u fakareen iyo garaadkooda iyo qofka kala hadleen oo kala tashteen ma qaane keenaya jiray niman joqora ahay oo ahay niman kulay laga keenay lokeeshimada oo la yiri security ahaayeen magaca Soomaalidana inta jaakada loo soo galiyay magaca Soomaalida gadaal looga soo dhajiyay oo arin aad u xunahayd oo aadana kiiskeedu oo socdo aadna u adag xaalad aad u fool xunay ahayd in la kor keeno Soomaalida iyo guryaheena iyo carruurteena korkooda iyo meelaha aan xawaaladaha ku lahayn kaydka ahay intii nooga hartay intiina la ka boobay iyo intii aan kala soo baxsana locationka in dadna la ka daba keeno ee nala dul dhoobo arrinkaas aniga aad iyo aad aan u dhaliilay oo aan aad uga xumaay waxa jiray intaan arrinkaas u dhicin ka hor shir guuda jiray oo sectorka xaafadda aan ka deganahay police stationka sectorka aan ka deganahay sector 5 saraakiil ka socotahay ay Somali community halkan degan ay la yeesheen shir ay la yeesheen jiray shirkaas oo la isku afgartay maadaama doorashooyin wadanku galay oo xaaladdu aad ay u xun tahay doorashooyinkaas la adkay amniga oo aad u xumaan doono qalqal jira oo cabsi la qabo oo doorashooyinka laga qabo maadaama xisbiyadii wadanka ugu waaweynaa iyo madaxdii madaxweyne Zuma kaleeto oo qaadacay asagana laga reebay doorashada sababa amni oo la cabsanaya darteed ay saraakiishu ay dhaheen amniga aad in loo adkeeyaan rabnaa inaan nala shaqeysaan rabnaa dhalinyaradii CBF ka Community Police Forum ka xaafadda iyo dadkii xaafadda aan u shirinay oo aan ballaminay dadkii markay yimaadeen oo saraakiishii booliista iyo inaga aan isafgaranay from that day waxa dhacday dad si oo arkay Janis arrinkaas oo inuu ayaga caqabad ku yahay ayaa waxay sameeyeen intay baxeen waxay keeneen dad ay ku sheegeen xaafad dadka qaar ay u sheegeen military in xaafadda lagu soo daashay dadka qaarna ay ku dhaheen waa company security hase yeeshee markii aan baarnay oo dawladda iyo aan la kaashanay waxaan ogaanay dadkaas inay ahaayeen dad joqora ah siyaasadda ka dambeysay waxa la rabay dadkan masaakiinta oo halkan degan in la boobo oo lagu dhibaateeyo oo xaafadeena ay noqoto xaafad lama galaayo dawladana kadibna hadii rabsho dhacdana booliisku inta soo farageliyo xaafadda sidaas talaabo looga qaado marka arrimo siyaasadeed ay ka dambeeyay oo xisbiyo iyo waliba waxa ka dambeeyay ganacsato kambaniyal waaweyn marka alxamdulillah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa naga badbaadiyay marka waxaan uga digayaa dadkii waxa ka shaqeeyay walaalayaalow wax badan oo ka shaqeysaan oo waqtigiina aaglisaan oo energy-giina aaglisaan ka badan oo heli kartaan oo qaban kartaan waxaan idin leeyahay ilaahay hortiis dadka masaakiinta oo ilaahay subhanahu wa ta'ala caabuda oo masaajidda ku tukada 24 saac masaajidka aan ka bixin qaarkoodna alla bari iyo ku jiraan iyo cibaado inaadan u geysan dhibaato oo aadan u keenin dad aysan xamili karin dhibaato aysan ka bixi karin weligeed ma dhicin dad darisahan la deganahay weligeed ma dhicin meel security ama dad joqora ah oo saasa duulii guryaha qabsanay lagu soo daadiyay inta la kor keenay dadkii meesha xawaaladaha iyo lacagta kistireedo nooga badbaaday oo aan kala soo carana locationkii in weligeed Ilaahay ma aysan dhicin in dad la kor keeno adinka sabab ha u noqonina ha ku ceeboobinina sharaftiina ha ku dilinina taas waa intaas tan kale waxaan rabaa inaan uga hadlo si guud amniga wadanka iyo doorashooyinka walaalayaalow waxaan u baahanahay anaga hadaan Soomaali nahay inaan horta si foojigan aan uga foojignaano xaaladda soo cusboonaatay ee ay jirto wadanka amnigu waa isbedelay wax kasta isbedelay askartu xilligan oo kale Janis ka faa'iideysan ayaga laftirkooda ayaga oo ciidankii saxda ahaa
marka waxaan dhihi lahaa qof kastoo Soomaaliya inaan is ururino albaabadeena xirano foojignaano isla socono xaalad kasta soo gudbo qof la soo gudboonaatana inaan gruubiyaan leenahay ku kala war qaadano talaabooyinka aan qaadaynana aan la socono xafada dhibaatooyinka ka dhacaysa in telefoonada la iska dafo gacanta in baabuurta la xado kajaaliyad ahaan ka dhalinyaro ahaan sida ognahay waxaa jirto dhalinyaro taagan oo mar walba ay la dagaalamo crime-ka oo magacooda la yiraahdo CPF sidee looga hortagi karaa leedahay dhibaatadaas Karash waa mahadsan tahay waa jirtaa snatching phoneska in telefoonada la dafo horta taas si guud South Africa la qabnaa xaafadana kaliya maahan walow saraakiisha booliistu ay noo sheegeen waxyaabaha soo kordhay oo culayska ugu badan inay tahay ama riboodka ugu badan ee gudbay inay tahay sectorkan la yiraahdo sector 5 oo Soomaalidu degan tahay culayska ugu badan ama riboodka ugu badan oo police station ka tagay waa sector 5 iyo townka oo sector 2 ah labadaasna waxa keenay populationka ku badan dadkana Soomaaliyeedna ma ahan dad foojigan alxamdulillah wax badan aan horta aan ka hortagnay oo dhalinyaradan amaanka u dhaqaaqda haddana saasay tahay waxay u baahan yihiin in laga wada hortago hada shalo kale ribood waxa yimid nimankii maalin weeta la keenay oo security-ga lagu sheegay inay inta soo laabteen isla iyagiyo la yaqaan inay telefoon ka qaateen dukaamadii marka taas laftirkeeda culays badan ay keenaysaa inagoo awal teen la yaabanayna qurac baa nagu soo korjabay quracaas nagu soo korjabay marka sida aan isaga bixi lahayn oo qodxaha isaga siibi lahayn ayaan falankeeda ku jirnaa insha Allah taala waana ka shaqeynaynaa intii tabarteena community-gana waxa la rabaa inay si guud uga qayb qaataan waxaan kula dardaarmayaa jaaliyada shir guud jira oo ganacsatadu hadda loo balansan yahay iyo odayaasha iyo akhyaarta kulligeed oo la rabo in looga hadlo arrimahaas amniga waxaan kula dardaarmayaa shirkaas sida ay odayaashu noo sheegan iyo ganacsatadu waa shir aan qofna laga tagin qofna laga tashan waa aayihii dadkan halkan degan sidii barnaamijkii maalin la weeto dhacay uusan u dhicin kan wuxuu noqon doonaa mid laga tashto guruubyadan ka soo sheegi doonaa odayaasha noo soo iclaamin doona insha Allah taala waxa marka leeyahay walaalayaalow qofna yuusan maqnaanin shirkaas laga soo qayb galo qof kasta oo amniga gurigiisa iyo albaabkiisa iyo waxa jeebkiisa ku jira asaga oo xil saaran ilma adeerayaalow walaalayaalow cadawaan dhex deganahay cadawgaas noo soo shaqo tagay cadawgaas si wada jira aan isaga qabano oo ka tashan aad u maaqsantahay marka falkii dhacay community-ga meey ka fadhiisteen iska wareystay waa jirtaa falkii dhacay fal aad u xumo ahay waana laga wada murugaysan yahay waana laga wada xumaaday marka waxa jiray community case la furaa jiray oo si guud community-ga oo case u furay ma aysan dhicin hadda koor inta qof community-ga isaga soo dhaxordo wuxuu raba keeno in community-ga case furo marka community case jira oo la furay oo si guud ah si talaabo looga qaado dadkii waxaan ka dambeeyay dadkaasna waxa la saari doonaa sida dawladdu noo sheegtay maxkamadda looga yeeri doonaa travel ban waa la saari doonaa dibadda uga ma bixi karaan wadanka inta kiiskooda si dhamaanayo tan kale inaga shakhsi ahaan dhalinyaradii iyo raggii ka hadlay meeshaas dhibaato ayaga u qaasaha jirta oo dadku aysan ku baraarugsaneyn ama inta ku baraarugsanay ay numbers ay tahay hanjabaado waxaa jiray anaga maalintiiba nooga yimid raggii gaangiska ahay oo nimankaas horjoogta u ahay oo madaxda u ahay oo ayna dhaheen barnaamijkan waxa anaga nama taqaanaan waa iskiin bari doonaa sababtoo tahay shaqadeena hor istaagteen marka ayadana waxaan sameynay waxaan ka soo furanay protection order kiisasan ka soo furanay taas oo aan mar dhow insha Allah taala dawladdu madaaba mashquul badan oo jiray oo booliisashinadu ay mashquul hayeen ayadana maalintii aan ku dhaqaaqi lahayn oo dawladdu noo soo sheegi doonto oo aan tagi lahayn oo dadkaas aan kiisaskaas iyo warqadaas protection order-ka ay noo saxiixi lahaayeen insha Allah taala